السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan asxaabta waa idin salaamay. Salaan ka bacdi maanta waxaan rabaa inaan sheeg halkan ka bilaabo cashirkeeni arjikaad ahay oo aan ku balansanay habeen dambe oo axad haduu ilaa yaraa awada ayaan soo hormariyey. Sababta aan soo hormariyey insha Allah tacaala waa idinla soo shirgalay doona haduu ilaa yaraa. Marka waxba hadalkaan ugu dheerayn aan noo bilaabo insha Allah cashirkeeni oo ah arjikaad. Sida afka waa kana qof walba inuu heesta rajeynaya. Marka qof walba haduu ku shubtay double click ayaa hal mar kusoo kicinaysa oo kaliya kusoo arjikaadka isla markii uu soo kicinaya arjikaad 23 arjikaad 23 arjikaad 20 arjikaad 21 arjikaad 22 dhamaantood waa isku wada mid kaliya waxay ku kala duwan yihiin farshanka iyo sheeg tools yargaris oo gadaal loogu soo dardaray ilaa arjikaad 23 laga imaanayo. Marka saan kugu soo kaco projecti hore u sameysay hadii jiraan saa ayaan kugu soo qabanaya hadii aysan jirin ii sheeg kuma soo qabanayo isla markii waxaa taabanaysaa new ayaa leedahay new project ka bacdi kan close ayaa iska leedahay wuxuu ku keenayaa marka create new project marka template-ka aan isticmaalayna waxa waaye arjikaad 23 arjikaad kale hadda template kale oo ii sheeg oo shirkad lacag u shaqeynayso hadii jirto oo shirkadda template gooni ay adeegsatay ay jirtana ii sheeg kaas ayaa adeegsanaysa. Marka working environment last used oo hadda intii ku soo qabtay laakiin adiga waxaad taabanaysaa standard profile 23 oo ah sheeg kan oo fahmaya arjikaad 23 ka bacdi wuu ku soo kici doonaa. Marka hal mar wuxuu ku dhex keenaa marka ii sheeg shaashada weyneed halkii arjikaadka ka dhex isticmaali lahayd. Marka waa kana ii sheeg marka waxaan rabaa ii sheeg inta aan project aan sameynayo ayaa wax ku baran kartaan tools walba oo macnaha arjikaadka ka mid ah. Hadda design-ka camal hadda umaan wall waa kana door window opening tool-ka column-kii beam-kii slab-kii stair-kii railing-kii roof-kii dhammaan wixii dhan intay ku jiraan. Marka si practical ah inaa loo barto ayaa mar walba ka fiican inta hal in kuu sharaxi lahaay dhammaan waxa ay qabtaan. Marka insha Allah tacaala directly project-ka toos u gudagala insha Allah tacaala. Marka oo saan ay ku qada inaa project bilowdo directly marka hore waxaa u baahan tahay inaa ii sheeg damage-ka aad ku shaqeyn lahayd inaad soo saxatid. Marka option aad tagaysaa project preference-ka aad tagaysaa working unit-ka aad ku dhusanaysaa. Ka bacdi millimeter iyo waxa adeegsanaysid ayaa ii sheeg halka ka dooranaysaa. Marka anaga meter ayaa adeegsanayna haduu la yaraa decimal-kana waxaa ka dooranaysaa 2 laba god square meter halahan kale way ku saxan yihiin kan decimal-kana isagana dooro. Marka layout unit-ka dhigto meter ka dhiganayna haduu la yaraa ka bacdi okay ku leeyahay. Ka bacdi directly waxa uu gudagalaynaa marka project-keena oo ii sheeg aan ku bari doono arjikaadkan 23 project hadda idinma sii sheegayo laakiin toos u gudagalaa ka bacdi ilaa dhamaadka idinka arki doontiin project wuxuu noqon doono. Marka walls-ka ayaa taabanaysaa walls markaa tagtid ii sheeg wall default setting ku geenaya ka bacdi ii sheeg dhammaan wall-ka oo ii sheeg oo qaabka loo isticmaalo dhammaan kuwana. Marka anaga hadda home history +1 not link ayaa leedahay hal mar jaajarana iraado. marka halka marka not link marka dhahdid ka bacdi wall-ka waxaa ka dooranaysaa wall-kaas ayaa dooranaysaa ka bacdi height macnaha aad ka rabtid 3 mitir ayaa hadda ugu qoran waxaa ka dhiganaynaa 3 mitir iyo 20 3.2 wall thickness halkan ayaa laga bedelaa wall thickness-ka asina waxaa dooranaynaa 0.2 oo Soomaali laga isticmaalo. Halkan waxaa ka bedeli kartaa kalaradii oo ii sheeg oo wall-kaada naga lahayd. Marka
derbiga banaankiisa hadda kana ayaa noo matalaayo. Waxaad dooranaysaa wide glossy. Ii sheeg geesahana waxaa ii sheeg aad ka dooranaysaa waxa hadba adiga ii sheeg ka aad jeceshahay inaad ku shaqaysid. Ii sheeg halka oo gudaha asigana aad ka dooran karto waxyaabo wax mid allaala midka aad doonto. marka alaas aad soo shaxatid inta imaanaysaa waxaa ku dhusanaysaa calaamadaas yariista ah. Ii sheeg rectangle-ka kasoo dooranaysaa. marka projectiga aan ka shaqeynayno wuxuu noqon doonaa 12 lagu dhuftay 12 kale. marka halkan aan ku dhex shaqeyn doonaa haduu la yiraahdo. marka teeda kale saaxiibayaal aniga macalin weli hore uma soo naqanin, marka sharaxaadeyda hadday iska xun tahay iyo hala ii dulqaato insha Allah. waa laga bixi doonaa haduu la yiraahdo. marka wall-ka hadda ii sheeg dhamaantiis hadda wuu isku dhagan yahay sida ujeedno. marka inaad kala jarjartaa rabaa. marka meesha halkaas taabanaya oo isbanding group ah. markaad taabto dhammaan wall-kii marka individual ahaan waa loo dooran karaa. marka waxaan rabaa marka qolalka inaa halkan ka abuurto. marka waxaan u baahanaa marka reference line-ka aan soo qabsanayaa. halkaas markaan kasoo qabsado waxaa gashanaa cabirka oo ii sheeg qolkayga intuu ii noqon doono. oo ii sheeg hadda waxaa iska dooranaynaa 4 mitir. 4 mitir ayaa saas u gashanay. wall ayaa soo dooranaysaa kabacdi. marka haddaa rectangle soo dooran mogta weli rectangle kana na daba joogo. marka inaa macnaha oo aan iska baabi'inaa rabnaa rectangle-kan. meesha ayaa ku noqonaysaa. waxaad dooranaysaa wall-kaas hadda soo dooranaysaa oo ah mid oo macnaha oo haddaa meesha harta aad la aadi kartid oo saarta u jiidan kartid. taas markaad soo doorato kabacdi halkaan noogu samee wall-keena. kabacdi waxaan samayn doonaa halkan waxaa ka dhigan doonaa qol. halkan waxaa laga dhigi doonaa musqul yariis ah oo adiga mitir iyo bar ah. kabacdi waxaan samayn doonaa halkan waxaan ka dhigi doonaa halkan ilaa kan labo. marka waxaan rabnaa qolka inuu master room noo noqdo. qolkaana waxaa ugu talagalay sina qayb oo ii sheeg oo gym ah oo ii sheeg gymka lagu qaadi karo. marka centerka inaa dhigaa rabaa. centerka inaa dhigaa hadaan rabo inta outside face-kaas waxaa ka dhiganayaa center. marka centerkan geesanaa. marka qolkan gymka wax yar oo hore usoo baxsan yahay marka oo ah ilaa iyo mitir iyo 20. wall-kan hadda inta noo yaalo oo halkaas ilaa geeskaas tagayna hadii aan rabo inaa ii sheeg aan kala jaro waxaan tagaa halkaas split tool-kaas. meesha inaa ka jaro aan rabo ayaa ku dhufanayaa. kabacdi saas ayuu igu jarmaa. kabacdi control D aa soo leedahay waa soo qaadanaysaa bartaa rabto inaa dhigataa dhiganaysaa. kabacdi meeshaas oo ku yaalaa. intaa kabacdi waxaa kaloo rabaa inaan sameeyo staircase-ka meesha ee mari lahayd iyadana naftirkeeda inaan sameeyo rabaa. marka qaab oo waxaan u sameynaa ii sheeg stairka oo elevation-ka oo banaanka ee igu quruxsanaan karto.
marka waxaan ka dhiganayaa meesha 3 mitir ii geli derbigan asigana iga jar mar walba elevationada oo banaanka waxyaabaha ku qurxiya hadda staircase-ka camalaa kamid ah inaa wax yar gadaal aa u bixiso outside-ka ii dooran staircase-kayna halkaas ayay noo geli doontaa insha Allah. Marka waxaa rabaa jikadii halkii iyadana noo noqon lahayd hal mitir ayaa kusoo sikanaya so gurigan jiko weyn aa loo rabaa jikada meeshan offset inaa ka dhigaa rabaa offsetka waxaan dooranaynaa 0.2 aad u yaryahay 1 geli areadan kale oo hadda soo hareysana waxay noo noqon doontaa qol meel oo fadhi ah oo weyn oo isheeg oo dhammaan haddii la imaado la wada fadhiisto marka staircase-ka marka waxaa rabaa inaan halkan soo dhigo marka cabirka oo waxaan ogaanaa space-ka aan haysto ogaanaa 2 mitir iyo 80 ayaa haystaa 2 mitir iyo 80 marka haysto stairka tagaya oo ku dhufanaya kabacdi waxaan soo dooranayaa stairka 2 mitir iyo meeqa haysana 80 2 mitir iyo 80 marka waxaa u qaybinaysaa 2 u qaybi meeqa waay mitir iyo 40 kabacdi riserkayga wuxuu ii noqonayaa leenahay 20 xabo inta isku jiraan waxaa leenahay 0.18 riserka ah kabacdina not link dheh 3 mitir iyo 20 ka dhig ilaa halkii ay tagayso okay dheh marka reference line oo sii samaysana staircase-na marka iyadoo xoogaa isku dhex yaacsan ay ii soo gashay marka waxaan sameynayaa adjustment inaan sameeyo isku dayaa marka saas hadday tahay cabirkii aan ku laabanaa 5 mitir iyo 20 iga dhig okay hadda waa kana
aad ay ugu fiican tahay marka. lacala inaa starka sii wada daarabtid camal continuous kaas lee ku dhufanaysaa hore lee usii wadi kartaa marka daarabtid mid oo adiga outside-ka lagu sameeyo oo kale oo isku daba wareegsanaysa camal haday u baahan tahay. laakiin tan inta halahan lee ku ekeysanayna si u muuqato inaad rabtid hadaa aragtid banaanka geynayna waa fiirinayna 3D tag waa taasaa halkay kasoo bilaabanaysa iyo halkay u soconaysa intaba waa taas iyadoo wayna la egtahay derbiga ahayd 3 toos ay ula egtahay. marka positionkeeda kusoo ceshanayna inay la ekaato hadaan rabna waan sameynayna waxaad tegaysaa move node-kaasaa tegaysaa marka intii ka qaloocantahay waa soo qabanaysaa keenaysaa saada marka okay ku tahay marka. taas ka bacdi waxaan rabnaa inaan hadda dhigno albaabada iyo daaqada iyo hadda halkaan aan gashano albaabka waa halkaas kasoo dooranaysaa door toolkaas ka bacdi click ayaa leedahay door option marka options badan ku siinaya emitter door director halkaas kasoo dooranaya gurish door director halkaan kasoo dooranaysaa hinge door director halkaan ay ka buuxaan ayana sidoo kale dhammaan adi noocyada u baahan tahay dhan noocyada rotationka iyo pivot doorka iyo dhammaan halkaan ay ku jiraan sliding doorkana ayana halkaan ay ku jiraan. marka hadda waxaan dooraneynaa hinge door aan raadsaneynaa iyo nooca u baahanahay noocan ayaan hadda dooraneynaa door 23 cabirka aan ka rabno waa 1 mitir height-ka waa saxan yahay kan 0 iska dheh marka leaf doorka marka waxaan ka dhiganaynaa no grid hadda noo saaran intaan kasoo dooranaynaa marka nooca u baahanahay markana u baahanahay marka nooc badanaa Soomaaliga isticmaalo style 6-kan waaye amba style 8-kaas style 8-ka noo door handle hadaa u baahan tahay halkaan ay ku jiraan nooca rabtaa kala soo bixaysaa waxaa noo soo qabataa kan noo soo qabo kabacdi arrowgaas hore usii raac marka halkaan markaa tagtid override ayaa leedahay marka line-kaas hadhow 3D ay kusoo muuqanaysaa line-kaas aad isaga qarisid waxaa u baahan tahay inaad tigdaas aad ka qaadid open line-ka si macnaha door caadi kugu noqoto kabacdi halkaan marka ii sheeg waa doorkaada ii sheeg macnaha albaabka nooca uu noqon lahay kalarkiisa iyo halkaan ayaa laga saxaa marka uniform-kaas tig saaro kabacdi wood horizontal wood adi alwaaxa soo noqon lahay dhammaan meeshaas sarta u dooran kartaa. marka ii sheeg inaa macnaha ii sheeg place gareys waxaa u baahan tahay grid line u baahan tahay markaad sameynaysid ii sheeg project sax lagaaga rabo marka grid line-ka aad soo qaadatid 20 senti ii sheeg aa bixaysaa kabacdi waa dhigaysaa bes marka hadda ani waa iska dhigdhigaa leh idinka hadhowto laakiin waa ka taxdiraysa insha Allah.
halka ii sheeg jikada 2 meelaan ka siinaa kan albaab banaankaas laga soo galo noo noqon doonaa anaa xabiisi gaadii albaab oo 60 u baahan oo musqulaha aan gashto kan musqusha oo jimkiisa badanaa banaanka ka siinayna kan kasoo sii kan oo master roomkan xagga ka siiya halkaana waxay ahaanaysaa area weyn barxad weyn oo hadhooti oo macnaha ii sheeg oo fadhi iyo waxyaabo badan ay yaaliin marka soo guriga oo sheeg oo macnaha dhankiisa hoose waasac u noqoto hadhooti qolo kala qaybiskooda iyo qaybta kore ayaan aadayna insha allah marka halahan 3D-geeda hadda hal mar aan isla fiirino marka mar walbo inaa orod dhahdaa rabtid inaa inta soo aadid oo orod aad dhahdid macnaha mar walbo ii sheeg waa laga fiican yahay marka shortcut isticmaal oo le taabo hore ka qabsamaa marka waa kana had inta noo sameysan waa kuwaasa dhammaan hadda waxyaabaha noo sameysan waa kuwaasa marka albaab ayaa halkan ugu baahannahay albaabka marka waa albaabadaas kale oo inuu ka duwanaadaa maadaama uu guri banaankiisa uu yahay albaab xoogaa qurxan ayaa ka dhiganayna insha allah waxaa aadaynaa sliding doorka sorry window waa ku jiraa doorkana geli sliding door nooc alaal nooc ila qurux badnaado ayaa kasoo dooranaa insha allah noocan hadda inoo door guridiskiisa waxaan ka dhiganaynaa stairkaas nooga dhig albaab weyn oo laga soo galaa inuu ahaada rabnaa mitir iyo bar iska caadi waaye waxaan dhignaa bal marka albaabka saasuu noqday marka waxaa rabaa inay halkan aluminium ay ahaato marka waa ku naqanaa settingkiisa ku naqanaynaa settingkaa tagaysaa halkanaa sii aadaysaa kabacdi waa iska xiraysaa ii sheeg override-ka oo billaanka waa tiga iska saaraysaa tigta waa ka qaadaysaa aan dhehe marka halkan oo ii sheeg oo frame leaf and surface-ka halkan ay uniform dhahanaysaa kabacdi halkan waxaa kasoo dooranaysaa metal aluminium halkan waxaa kasoo dooranaysaa blue glass frameka ay iyada wadatana waxaa ka dhiganaysaa cadaanka wada dhigo marka albaabka saas ayuu hadda noqday aluminiumka soo yeeshay sidan hadda waa israaca kasa marka waxaan rabaa marka inaa slab u sameeyo slab oo foundationka badanaa asiga waxaa la dhahaa 1 mitir hadda waxba uma sameynayay waa kule iska saarsaara leh hadda keligiis u muuqda in aragtid aad u noogu weynaaday hadhowtii alahan dhulka qaar galaysaa laakiin hadda 25 ka dhig hadhowtii halkan jaranjaro u samayn doona oo laga koro halkana sidoo kale iyadana halkaasna hadda slabka waa ii sheeg waa ka daba geynayna insha allah slabka hadda halii ka maqnayd halahan waaye halkaas dhibicdaas madow aa taabanaysaa calaamadaas add polygonkaas aa ku dhufanaysaa kabacdi waa ku daraysaa halkaas
saa ii sheeg koobaan ku saarayo tartiiba u saaranaysaa halkaas hadda sidoo kale waxaa u baahannahay slab oo asigana oo qaybta kore marka slabka qaybta kore markaa saaraysid waa inaa ii sheeg 3 mitir iyo 20 ii sheeg hadaa usoo sameysanay inaa ii sheeg aa ku xisaabtantaa waaye thicknesska daaya 1 mitir noo ahaana wuxuu noo noqonaa 20 senti amba 15 hadii sida loo badan yahay sidoo kale ii sheeg slab offsetka oo kor loo baxayo wuxuu noqonaa 3 mitir iyo 20 okay aa leedahay waxaa kaloo sameyn kartaa inaa hal mar automatic aa u dhigtay hadaa rabtid space aa qabanaysaa hal mar aa saas u saaraysaa hal mar oo ku saarmaa haday waata hal mar ii sheeg aa ku qabanay laakiin hadda space anoo haayo ii sheeg slabkan oo ii dooran yahay hadaa qabto hal mar anoo ii sheeg waxba ku wareejin hal mar ii saarmaa saa hadaa u taabto wuu saaran yahay waxaa iga dhiman oo keliya hala yariista oo jaranjarada aad ayaa leedahay sidii haday sameyn camal kabacdi waxaa sameynaysaa halaha oo jaranjarada mar walba way banaantahay soo maa waa banaynayna iyadana sheeg meesha halkaas madow ayaa ku dhufanaysaa hadaa plus taabanayna hadda negative aa qabanayna subtract from polygon aa leedahay hal mar keliya ay ku leedahay saasay kugu banaantahay marka 3D ga hadda aan fiirino marka halkaas 3D ga hadhowti kalarada waan kala bedeli doonaa marka dhammaan design-ka aa dhameyna kala bedelina insha Allah laakiin hadda saan ayaan ku wadaynaa haduu la yiraahdo marka hadda floorka koowaad waa ka dhamaanay ii sheeg ground floorka waa ka dhamaanay first floorka aadaynaa marka first floorka marka mar walba wuxuu u baahan yahay asigana in ii sheeg adjustment lagu sameeyo ii sheeg halkaas oo guriga uu ku sawiran yahay ayaa ii sheeg aa taabanaysaa kabacdi ground floorkaas aa right click ku leedahay setting usurigaas ayaa taabanaysaa kabacdi waxaa gelinaysaa offsetka ay isku jirjiraan mid walba horta heightkiisa waa ku dul qoraysaa 3 mitir iyo 20 3 mitir iyo 20 kana ka dhig amba iska daleedaa delete history kabacdi insert above ayaa leeyahay saa isku dhigeenba hadii guriga inta xabo ka koobnaan doono marka hadda halkan ayaa rabaa inaan ii sheeg qaybteen labaad oo hadda ground floorka waa kana first floor second floor third floor ilaa ii sheeg inta xabo aan u baahannahay saas ayaan ku geysan karnaa marka kan ayaa marka hadda ku xijinaynaa insha Allah marka okay ayaa leedahay wuxuu leeyahay waxyaabihii hore inaad iska delete diyaar ma u tahay ayaan leeyahay waa ku dhuftay jaranjarada oo keliya ayaa ii soo hartay marka qaybtii hore qaybtii oo ii sheeg hoose saan ku ogaanaa marka inay ii sheeg iyo qaybta kore inay ii sheeg iska lahaato trace waa taaban kartaa si qaybtii oo macnaha hoos hal mar ay kugu imaato wallka hadaa u baahantahay hal mar aa ii sheeg aad raacatid haddii kale mid kale oo ka fudud waa sameyn kartaa asagoo ii sheeg oo traceka uu ku xiran yahay hoos ayaa tagaysaa ground floorka ayaa u laabanaysaa waxaa soo dooranaysaa dhammaan darbiyada banaanka haddii kale hal mar asiga dhan waa soo dooranaysaa waxaa ka reebaysaa slabka iska reebaysaa labada slab iska reebaysaa hal mar adoo shift taabanayo slabkaas reebaysaa kabacdi wallka dhan markuu kuu dooran yahay control C ayaa leedahay halkan ayaa imaanaysaa history 1 kaa tagaysaa control V amba bast ayaa ku leedahay kabacdi waxaa iska tirtiraysaa qolka dhammaan iska tirtiraysaa delete ayaa taa sorry delete ayaa taabanaysaa dhammaan waa iska deleteaysaa wixii gudaha ku jiro albaabkan waa sidoo kale asigana iska deleteaysaa maadaama oo ii sheeg kor albaab looga baahnayn marka hadda saan ayaa noqotay albaabkan asigana sidoo kale oo baxaa
marka waxaan u baahanahay inaan samaysano ii sheeg hada kolley waa dareemi kartaa waxyaabaha aan samayn doono waa dabaq marka waxaan rabnaa inaan dabaq qurux badan oo noo soo baxo insha allah marka waa kala jarjaranaynaa markaad marka derbiga noo qabo ilaa halkaas noo geeyo marka inta qolo u baahannahay waxyaabaha u baahannahay hal mar ayaan samaysanayna insha allah marka inta waxaa iga soo bixinaysaa 5 mitir maya 4 mitir iyo 80 halkaana 4 mitir iyo 80 marka waa qolkeena hadda kala jarjaranaynaa marka halkaan marka iyadana waxaan rabnaa inay noo noqoto dhexdheer kaloo yariis ah marka simple wax si simple ah insha Allah tacaala inaan u sameeyo isku dayo haduu Ilaahay yiraahdo marka waxaan ka rabnaa inta inay 2 master room inaan halkaan geliyo ayaan rabaa insha Allah marka cabirka halkaan iga soo qabo marka aan u baahnahay isku dilayaa asiga kabacdi waxaa u kala qaybinaa marka derbiga hadda camal hadaa u baahanahay ii sheeg inuu gudaha ii aado B4 ah aan taabanaa gudaha aada hadda inuu banaanka soo aado hadaan rabo isla iyada lee ku celinaa kan asigana iga jar inta iyadana waxaan ka rabaa master room kale ka rabaa kan derbigan le control D xagga iga gee asiga halkan ayadana waxaan ka rabaa inaan balcony aan ka samaysto oo ah 1 mitir iyo 20 derbiganahaygi macnaha balconygan wuxuu gaar u noqonayaa qolkan iyo qolkan ayuu gaar u noqonayaa iyo dhexdeertan qofkii imaadan inta iyo insha Allah tacaala iyadana miyaarad heer sare insha Allah iyadana geli doonaa
so intaas ayaa hadda macnaha aan sameynay. Waa laba master room, qol kale iyo master room asina sii kale, iyo qol kale asina inta ku yaalo. Marka 3D markaa fiirino saas ayuu noo noqday, saas ayuu u muuqanaya gudihiisa. Marka waa sii qurxinayna insha Allah. Albaaba u sameynayna mid walbo. Ka albaabkiisa halkaas ka siiyo. Sorry. Albaabkii oo hoose kii hoose ay doona. Marka albaabadii hadaaya aan samaystay inaa macnaha ayaga leh macnaha isheeg ama kuwada project-ka aan u baahanahay ayaga usoo laabanaya halkaas beenkaas oo big parameters-ka ku dhufanaya daaqada imaana big aan leh. Marka waa kasaa iyadii ruuxeeda ayaa wataa project-kii oo kor aan tagaa marka waa saaranaya labis. Marka hadaa fiirisid isla daaqadii hadaaya aan hoos kusoo qabsanayna leeyahay isla albaabkii. Kana halkaan ka sii korkaan asiina laba albaab sii kan albaabka inta ka sii albaabkan hadhowtu wuxuu ku furmi doonaa dhankan barandada loogu soo bixi doonaa insha Allah. Marka albaabka musqulaha sida markaa haddii aan u baahanahay inaa ii sheeg aan qabo macnaha aan ku laabano halkaan la tagayna 60 laga dooranay 0.6 ka dhigayna albaabka musqulaha caadi aan ka dhiganayna. Marka waa kaasa halkaan marka waxaan rabnaa inaan miyaarad qurux badan inaan gelino. Marka hal mar waxaa samayn doonaa horta waxaan banayn doonaa ii sheeg balkoniskan sida u baneeya. Marka waxaan u baahanahay inaan daaqada tago embed window inaan soo raadsado sariyo inaad 0.3 ee hoos kasoo kacaysa ilaa heightkeeda wuxuu noqonayaa 3 mitir. cabirka widthkeeda hadhowti intaa controla no problem. Marka laba mar inaan koobiya rabaa marka see noqota aan aragnaba saas ayuu noqday. Marka cabirkii oo 3 mitir ah marka yareynayna hadda waxaan ka dhigaynaa 2 mitir iyo 80 weli 2 mitir iyo 60 waa nagu filantaa umaleynaa hadda. Marka cabirkan aad iyo aad weyn hadhowti halkaan railna u isticmaali doonaa. Waxaa gelin doonaa ii sheeg biro yaryar oo ii sheeg amba fences wax adiga nuuranaya gelin doonaa insha Allah. Marka labadooda dhankaas inaan geystaan haddana koobi leeyahay dragon koobi geyste.
waxaa kaloo rabaa inaan halkan inaan opening kale aan u sameeyo window la tag cabirkii 2.60 iga dhig marka halkan waxaa gelin doonaa miyaarad aan ugu talagalay miyaaradaha qaar waxaa jiraan oo xareysan kuwaas ayaan u adeegsan doonaa insha Allah halkii ay iigu jireen aan la'ahay warehouse-kan kuma jiraan flash ay ku jireen flashkana hadda waa iima yaalo marka jaanis ay idin tahay hal mar waa soo dejinaaba idan sketch warehouse marka hadda intii oo noo maqan yahay waxaan sii raadsan doonaa halkaana marka daaqad oo waxaan ka raadsanaynaa oo exterior loogu talagalo oo qurux badan sketch warehouse waaye qof walba kasoo degsan karo marka arjigaadka waxyaabaha oo ku dhex jiro keliya kuguma filno asa architecture ahaan waxaa u baahan tahay some external features inaad heshid oo lagu soo sameeyey software kale hadda miyaaradda ramatan camal waaye saan ayuu dhahwaya maqanya marka daaqadan sii samaysanaya hadii intuu noo maqan yahay window ayaa ku dhufanaysaa basic windows aadaysaa tan noo soo door hal mitir ayay dhulkaasantaa dheh settingkeeda tag aluminium ka dhigo dhowtaade markaa dhigaysa cabir aa ku dhigaya laakiin ani hadda waa iska dhigdhiganaa
marka xoogaa hadda ma qurux badna marka inay mid kuwa qurux badan inaan dhignaa camal markaan rabno hadda windowga taagantahay control A la leedahay ayadana waa ku doorsamaya isku bedelaysaa marka waxaa hadda dooranayna oo kale tanaan dooranayna oo iyadana ku nooc ah settingkeeda soo saxanaynaa uma baahnid mar labaad inaa ay dhan wada bedeshid halkan waxaa ka dhiganaysaa blue glass banka kalarkan ka dhigo hadda window cusub noo wada bedeleen dhammaan kuwii hore oo xoogaa hadda ka qurux badan wax yar laakiin dib waxay ka jirtaa waxaa haddana naga bedelmay kuwii banaanka marka dhib male kuwan waa hagaajinayna ayagana laakiin idinkana waa in hadda kadib laga taxdiraa afartaas xabaa bedelena MBT kasoo dhigaya 0.3 2.6 waa xasuustiin cabirkaas ka anaga hagaagsanayaan dib madax kuwaas original positionkooda ku celinay kaana mar aan fiirino kolley kan waa iga diidan yahay ma aqaano sababta aan kusii socono scheduleka usoo noqon doona doolaira hadii hadda aan waxyaabo kale oo aan hadda kusii bedelo kale aan fiirino tanba aan kusii bedelano settingkeedana geeya
iyo mar walba waxaa qurux badan inaad adeegsatid warehouseka daaqadaha laga soo dejiyaa mar walba waa qurux badan. Sidoo kale halkan hadda waxa ayadan adeegsanayna arjikaadka railinkiisa. Marka railinada kala duwan soo hadda macnaha u heshid halkan double click lagu leeyahay wuxuu baxaya marka dhammaan taabyada oo ku jiro isheeg oo royaliska ah kan noo soo door apply dheh bacdi kan 0.3 dheh istarwan waa saacan yahay waan dhigaynaa marka railing hadda saas oo noqoya marka arjigaada railinkiisa waxaa mar walba ka qurux badan kuwa SketchUp laga soo dejiyo. Sidoo kale halkan ayadana waxaan gelin doonaa meerad dheer oo la socon doonta insha Allah. meerad dheer oo la socon doonto isheeg jaranjarada. Marka hadda meesha hadda qalad yar aragnay oo ah jaranjarada inay isheeg keligeed halkaas ay taagan tahay. Marka problemkaas aan isla xalina hal mar. waxaa aadaysaa ground floorka bacdi dhammaan waxaa banaynaa marka inta jaranjarada ay ku aadaneed. Marka waxaan saxaynaa halahan ay ka maqan tahay balaas ayaa soo leedahay habkaas ka qabso war hadda aan fiirinaysa noqoto kada ay u saxan tahay. Marka halkan marka laga soo galo railing iyo waxaan u samayn doonaa insha Allah toos xagga loo aadaa. emailka hal mar ku noqonaa
marka halkan ayna daaqado uma sameyn daaqadii hadda usii samaysanayna insha allah kuwii kore aadaynaa waxaan kusoo qubsanaynaa hoos usoo laabanaynaa marka daaqadii hoose daaqadii kore iyo daaqadii hoose inay isku aadantahay ku ogaanaynaa koraa tagaynaa hal mar iskuma aadana sooma aragtaan marka reference linekaas ku saxanaynaa ayaga dhan reference linekaas meel walba ka muuqanayo mar walba marka tan noo dhigan ayadana marka waa isku aadin saan aad isugu aadamaya marka aan soo qabanaya iyadana qaytinkii markaas leedahay okay sketchup noo celi marka hadda waa kana marka hadda marka daaqadii aan u baahnay hadda isku tagsanayna marka mar walba marka isheeg 3D warehouse-kan wuxuu kaga baahan yahay inaad email samaysatid sign up inaad soo samaysatid kabacdi access u helayna waxa rabtay aad soo degsatid marka hal daaqadoo iska macquula meeshaan kasoo raadsanayna kuwii hore igu keedsanaayo falaashii iga raaceen marka sorry hal daaqad oo iska qurxan isla raadino insha allah marka mar walba modelka isticmaasho ayuu ku weydiinayaa marka modelka markaas oo sketchup ahaan kugu jiro mar walba sida shayga si ku isticmaal hadda 2018 ay ugu jiro 2018 kusoo degsanaa markuu iisoo dego waatana marka hal mar toosa u dhex keenaa marka sketchup iyo kusoo furay imiiga baahno waatana waa keenanay marka qaabkii u tala isku hubinaynaa kabacdi hadday saxan tahay iyada isticmaalaynaa okay waa macquul waaye waa la isticmaali karaa taasa iska siibeynaa marka inaad tan geliso cusub haddaa u baahata waxaa u baahan tahay mar walba inay embed kasoo dhigtid 0.3.8 khaylinka oo arjikaadkiisa si nooc iska tuuraynaa mid macquula soo degsanayna insha allah marka qabo rotate dheh marka rotate halkaas laga dhahaa marka mar walba waxaa aragtaan features oo arjikaadka aadna ku arkaynina oo badanaa dadka arjikaadka isticmaalaan badanaa modelskooda oo ku jiro marka halka laga soo degsado waa marka warehouse-kaas laga soo degsadaa
kabacdi halkan lagu dhex isticmaalaa. Marka waa kan hadda waa dhigay, bal aan isla fiirino si u taalo. Saas ayay noqotay, dhererkeeda saaid ugu noqday. Waa qabanaa, waa gaabinaa marka. Halkaasaa tagaysaa marka stretch height gaabsato waa kaasaa. Intana waa kasoo gaabinaysaa haddana. Kaasaa marka kan iska wada bixinaysaa horta, maadaama dhowta qayb kale aan saari doono, waxaan rabnaa inay saan u ahaato. Marka hadda modelka waa kaasaa, waxaa soo degsanaynaa marka railing oo sina ooga macquul oo modelkana qurxin doono insha Allah. Marka halkaas railing ay ku qoraysaa, rails. Waa kuwaana marka ayagoo fara badan oo ku keenaya. Marka hal xabo iska macquul ah kasoo degsanaynaa, hadda kana camal noo soo dejiye, iska jab modelkaas kusoo dejiye, weli way ku jiraan. Halkan marka railka waxaan noo imaaday control D dheh. Halkan marka basti ku dhaho, marka aad u dheer yahay iska gaabi marka. Mar walbo gaabinaysid halkaa markaa joogto waxay u dhigantahay move ama drag u dhigantahay ama jiid u dhigantahay. Halkaa markaa joogtina amba dheere ama gaabi waaye. Marka waa soo gaabsanaynaa, halkaas ku dhufsanaynaa. Waa fiirinaysaa inay noqotay. Aad ay u dheeraatay. Control D dheh. Hoos ku soo bixi. Korna ka soo gaabi. Hadda adiga height-ka aad isleedahay waa ku qanacaysaa. Marka waa kaasaa. Saas ayay noo noqotay. Marka ayada halkaas haddana move kusoo dhahnayna insha Allah. Centerka noo geey. Move dheh, drag and copy dheh. Halkaas markaa maraysid waxaad samaynaysaa jaranjarada usoo laabanayna haddana si ayadana wax qurux badan aan ugu helno. Marka hadda wixii ka dambeeya marka ii sheeg gurigan almost hadda inaa ka dhamaano ay la tahay. Marka u baahnaa marka haddana inaa halkan sheeg big parameters abaan leeyahay. Waxaan soo dooranaya empty dhowrkii day xag ku sameeyay. Halkaan ugu baahnaa marka maanta. Marka xagga empty ay noqotay. Marka waxaan rabaa daaqadaha marka mar walba jaranjarada marka aragtid badanaa ii sheeg inta meelaha camal ka bilowda ii sheeg. Daaqadooda amba ii sheeg shabaq loo sameynaa wixii markaas hadba loogu talagalay halkaas camal ka bilowdaa. Marka hoosaan keenaynaa. Hoosad marka daakiin ma slabkaas anaga diidaya marka. Slabkaas laga keeni karin. Arkeenaa bal slabkaas diidaya marka slabkaas ka soo jarayna insha Allah. Hoosaan tagaynaysa. Marka halahan jarayna soo ku weynana gadaal aan u laabanayna. Halaha daaqadayna tahay grid line soo saarnayna. Stronkeen macali, stronken aan leeyahay ground floor ka macali. Meel dhibic mid ku dhufo subtract dheh. Halaas ka jar marka. Sidoo kale waxaa u baahan tahay wallkan naftirkiisa inaad deleedid waayo
ii sheeg embedderkaas wuxuu aqbalaa hal wall isla socda. Marka wallkan inta kasoo qabsanaynaa asiga heightkiisa hoos keenina ilaa hoos keensanaynaa. hal mar haddaa ku celiso u sameeye kii hoose markaad deleeday kana inta ku dhufanaa halkaas dhibicdaasaa qabanaya. waxaan tagaynaa ii sheeg halkaas stretch heightkaasa ku dhufanaya bacdi halkaasa geenaya. walaala markaan halkaas keeno waxaan u raadinaynaa asigana sheeg miyaarad qurux badan. waxaan leenahay best windows isaga qor. hadba adiga waxyaaba badan oo keenaa oo staircase-ka loogu talagalay. خلاص magatir gadaal. stair windows tanaa taalo, taasaa taalo, tanaa taalo. waxyaaba badan ayaa yaaliin marka hadba taa anaga ku qanacnaa marka ka degsanaynaa kabacdina waan isticmaalaynaa insha allah. so ani hadda tanaa ila qurux badnaatay tanaa degsanaa. markuu soo degto halkaa marka mar walba haddaad 3D joogtid daraag ma soo dhigi kartid laakiin mar walba inaad 2D ga joogtaa marka inaa soo gelisa ay rabtid waxyaabaha soo degsatay soo gelinayna. diidantahay marka waxyaabaha qaar oo diida way jiraan marka mid kala raadsanayna haddana dhib ma lahan. tan noo soo dejiye laftirkeed tan isku soo dejiye. soo tan waa yar mujidid oo hore kusoo qabtay. roteedaan dhehanayna marka heightkeed aad u dheereeya marka hoos kusoo qabo. marka meesha hadhowti oo saan ana qaabka u xalilahayn anaa hadhowti anaa xalinaa insha allah. straight height halkaas ku ekee marka halkaas miyaarad qurux badan andana hadda halkaas noo gashay. marka hadda waxaan sameynaynaa marka guriga meeqa biyaana hadda ugu talagalnay waa kala kasoo qaad 4 biyaana ugu talagalnay. hadda halkan wax nooga dhiman hadda waxaa ka jiro fiican frame yar yar waxaa u sameynaynaa daaqadaha kabacdina waa gudbeynaa insha allah. window fault
structure wall extract kana marka daaqadaha dhan marka waqtiga wada dhigana si daaqadahana ugu qurux badnaadaan waa frame yar oo daaqada loogu talagalay daaqada cabirkeeda meeqa waaye hadkeeda waa 1.5 isna sidoo kale ka dhig 1.5 marka toos u leekaana hadda insha allah dhulka meeqay ka kacsan yihiin daaqadaha 1.5 bay ka kacsan yihiin sina meequu ka kacsan yahay 1.5 mirror aan dhehenaa marka waxyaabaha ama hadda controlada hal mar dhaha marka inaad hadda ku adjust garayso direct control D aa leedahay halkaas ka soo qabsanaysaa oo ku dhufanaysaa ku leeyahay marka hadda xoogaa daaqadaheena xoogaa sidii hore hadda waa frame-kan hadda xoogaa qurux badan marka dhammaan daaqadaha kale ku apply garaynaa marka so let's do it control D multiple copies dheh halkaas ka qabo daaqad walba ag dhig marka tan inta ka dhig hadhowta rotate ku dhaheena marka tan mirror ay u baahan tahay marka iga sii jeedaa mirror intaa ku dhafsanaa bacda control D dhahnaa halkeyga ku aadsanaa tanna sidoo kale mirror ay u baahan tahay control D dheh gadaal u sii ji marka waa kaasa hal mar object ayaan leeyahay control A ayaan leeyahay control C ayaan leeyahay control V hal mar waa igu wada dhigmay marka hoosna sidaad arkaysaan hal mar ay wada dhigmatay marka meelaha qaar daaqada aan lahayn hadda inta camal daaqadeeda kulley waa kusoo hilmaaman hadda u sameynaynaa insha allah halkan camal daaqada iyadana waa loogu baahan yahay waa u sameynaynaa halkan xataa waa loogu baahan yahay marka big parametry soo dheh daaqad soo qabsa
objectyada qaar hoos naga soo aado iska deleteena kan asina naga delete marka waxaan sameynaa marka malaynaa hadda qaybtan hoose waa ka dhamaanay qaybtan kor ayadana almost waa ka dhamaanay marka hal maraa control hal mar leeyahay waxaan ka reebaa bis waxba kama reebayo toos ayaan copy garaynaa copy ayaan leeyahay inta imaanaya qaybta labaad tagaya sidii hadda aan ku sheegay trace waa dhihi kartaa waana iska heli kartaa marka basti aan ku leeyahay kor aan dahan u sii baxayaa drift freega basti forka ama aan fiirin halaan aragtaan soo ma marka waxyaabo yaryar inta halkan iska bedbedelay walka hoosena u koobiyey deletean kaas dhahaynaa kan weli deletean sii dhahaynaa oo halkan xabaleecan oo aada halkan straight hag dheh halkaas gey kabacdi kan asina qabo alaan waa kasii dheeraanaya laakiin wax yar inta halahan hadda aan ka nidaaminayno halahan noogu ekaato marka waxaa kaloo ayagana nidaamis nooga baahan halkan control D waxaan rajeynaa xoogaa hadda waxyaabo oo wax macquul hadda oo noo soo bixin marka hadda saddexdan biyaan ku ekeysanaynaa trace ayaan leenahay waxaan sameysanaynaa barbadwalki marka barbadwalka mar walba asiga waxaa waaye kan ay her barbadwalka waxaa mitir iyo 20 aan dhehnaynaa ka waxaa asina koobi badan nooga soo baahan slabki
jaranjarada qaybta oo kor u baxaysa iyadana waa taasa qaybtaasa ka daladeynaa qaybteena hore ayaa kor noogu sii soconayso sidoo kale waxaan u baahannahay daaqado halkan daaqado u baahannahay halkaana sidoo kale daaqad kale u baahannahay waxaa kaloo u baahannahay fareenkaas albaabkan waxaa daaqadaas inaan ka daba geyno waaye waxaan rajeynaa xoogaa halkaana waxaa ka maqan daaqadihii ririska musqulaha laakiin no problem main ideyada hadda waa isla wada haynaa umaleynaa videogan hadda almost hal saac iyo bar sii socdaa marka waa kaasa waxaan sameyn doonaa kana asina waxaan u sameynaa slab slabka 15 waxaan ka dhigaa 10 waxaan sameynaa copy ayaan leeyahay paste ayaan leeyahay kabacdi wax yar cabir yaraan ku daraa halkan toastiya isku daraa iyadana si macnaha aan u helo faremkaas yar marka asxaabey marka waa kaasa hal mar meeshaan dulduleesha ayadana saa u xalina hal mar ayaan tusaa waxaan ku dhufanaa st elevationkaas right click open current setting halkaa markaa joogto waxaa ku xalinaysaa maraf toolkaas ku xalinaysaa maraf toolka dooranaysaa hadda rectangle noo saaran waxaan dooranaynaa calaamadaas polygonka dooraneynaa halkan ku dhufo waa la raacaa calaha ka banaan la raacaysaa marka kana calaha mirror lena u baahan tahay saa rajeynayo marka derbi cabirkiisa wuxuu noo ahaaye bacdi tube baa leedahay
adiga saar oo derbi cabdigiisa gashna oo 0.2 noo ahay saan wada ekeysiino okay aan leenahay weli ma ii waxaysmin kabacdi waxaan tagayaa geedkii liisku hadda samaysnaa waa kana waxaan bedelaa marka kalarkiisa kalarka derbiga camal aan ka dhigaa control D aan leeyahay meel alaala meeshuu ku ekaada ku banaa marka hadda waxaa qarsamay ala yariisa ahayd oo naga maqneed marka qaybta kale mar le lagu dhaha iyadana dib gooni iyadana malahan dragon copy mirror copy control D almost finish iyadana waa kasaa saas ku qarsoontay labada hoose iyadana waa geynaynaa ayagana mirror aan ku geynaynaa mirror and copy control D markaan dhigaynaa rotate aan ku dhahaynaa marka control D ayagana waa kaas ayagana waa kaas waa noo qarsoontay ka structure-kan hadda waxaa nooga dhiman marka jaranjaro inaan hadda inta halkan ugu samaysano jaranjarooyin so marka waxaan ugu celinaysaa ground floor-ka sectionkana geey jaranjaro inaan sameyno haddaan rabno marf toolka ka samaysanaynaa amba haddaa jeceshahay waxaa kasoo degsan kartaa jaranjarooyin warehouse-ka 0.15 10 15 10 15 10 15 10 15 10 sorry marf toolka wuxuu ku xun yahay mar walba haddaa qalad yar samaysid waa ku wada naqanaysaa le ka soo bilaabana 15 10 15 10 15 10 15 10 15 oo ku xiraysaa marka hoos imaanaysaa halkaan uu yaalaa marka saas leedahay asaa soo baxaya control D control drag laga wadaa halkaas ugu dhufsanaysaa halkaas markuu ku dhaco 3D ga imaanaysaa halkana marka jaranjarada geeskaas ka arkaysaa marka inay derbi ku fidisaa rabaad waa xir geeskan oo bilaabataa rabnaa kabacdi waa saas lay ku leedahay bis halkaas oo tube iyo qoranta ku dhufanaysaa marka drag saas u jiidaysaa bis jaranjarada ku samaysmaysaa
okay ku leedahay. Dhankan kale oo albaabkaas laga soo gala asina u baahanahay inaan dhigno leenahay bis rotate and copy. Control D noo qabo markaas noo qabo marka way ku weyn tahay marka waa iska jaraynaa halaha u baahnayn waa iska jaraynaa halahana aan loo baahnayn. Delay iska leedahay 3D gana gey orbit deh akaasa marka waxaan umaleynaa xoogaa 2D ga sida loo sameeyo qof walba adiga waxay ku xiran tahay hadda asiga sida uu adeegsan karo ii sheeg aalada. Marka hadda sida 3D ga iyo 2D ga hal mar la iskula sameeyo xoogaa idea oo guud qof walba waxaan rajeynaya inay ka dhacday oo asxaabteyda kamid ah. Marka waxaan rajeynayaa videoga halahan ka badan inaan sii socon doono insha Allah. Markaas halahas aan geynay marka insha Allah taala waxaan isugu imaan doonaa sida documenti loo sameeyo oo macnaha waxyaabahan ayagoo detail loo sameeyo iyo sida ii sheeg iyo sidii Lumion loo geeyo oo ii sheeg oo loo qurxiyo hal mar environment fiican loogu sameeyo kabacdina ii sheeg client-iga u bandhigatid marka hal mar intaan dhammeyn waxaan tusaa sida dimension loo saaro bis hal mar wall-ka taabanaysa control A ayaa leedahay markay dhammaan wall-asha saas kugu doormaan documentiska tagaysaa waxaa leedahay annotation taabanaysaa and automatic dimension wall leedahay exterior dimension ku dhufanaysaa marka hadda sida oo ii sheeg oo kugu macnaha kugu bandhigi lahaa halkan kugu sharaxaya marka dhammaan adiga default-gaas isaga daynaysaa wuxuu ku leeyahay marka afarta dhinac ma kuu dhigaa dimension ha ayaa leedahay tigaa saaraysaa okay ayaa leedahay kabacdi calaamadaas balaaska ku wada inta imaanaysaa qalankaasa derbiga dul saaraysaa waxayna ka leexinaysaa place ayaa leedahay. Ogaad marmarka qaar wuu kala diidaa laakiin waa kaas hal mar derbiga hadday 12.75 inta 12 mitir noo ah marka wax walba hal mar oo automatic ahaan kugu dhigaa inaa si AutoCAD-ka camal ii sheeg hal u dhigto macnaha interior-ka bis saas kugu ogolaanaya interior-ka automatic looma dhigi karo. Interior-ka markaa dhigaysa asina waxaa soo aadaysaa documenti-ga soo aadaysaa dimension tool-kaas taabanaysaa waa cabirinaysaa marka dhib male waa kana labadaas dhibco kugu yeelaa inta taabanaya right click ayaa leedahay okay ayaa leedahay waa dhex dhiganaysaa oo ku siinaa marka derbiga 20 waaye ku yiri inta 20 waaye qolkan 4 mitir iyo 80 waaye ay musqushaan iyadana maxay tahay waa cabiran kartaa daarta hadhowtid kaada waxaas yaabahaas oo derbiga cabiraha waa dultaye waa taabanee iska dhaaf marka gudaha la cabira leedahay marka laba dhibic saan kugu siiyo right click ayaa leedahay okay ayaa leedahay dimension dhex dhiganaysaa waa kaasa sidii loo save gareyna qof walba kulley waa taqaanaa umaleynaya save aa leedahay save as marka group cusub noo sameynaa city group noogu bixinaa markaasa halkaana first project ka dhiganaynaa kabacdi adinka solo project macnaha ku save gareysanaysaa. Marka dhammaantiin waa mahadsantihiin insha Allah tacaala intaan soo practice gareeyo guriga insha Allah tacaala waxaa kusii sameyn doonaa ii sheeg waxyaabo kale kusii sameyn doonaa waa alaama kasii qurux badnaan siin doonaa insha Allah waxaa loo sameynayaa wadooyin hadda cabirkan waxaa ugu talagalay 15-20 guri dhex ka dhis marka halihii ka dhimana ii sheeg waa u dhamaystiri doonaa documentiyaal waxyaabo badan oo sameyn doonaa ilaa Lumion ilaa iyo ka dhameynayna insha Allah tacaala isla jaan qaadi doonaa dowladda
marka waa mahadsantihiin dhammaantiina. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.